بسم الله. أولا السلام عليكم. قلب ونكسر مكورة. حرجينا قفل بمسمكم مشان كفريا وكسلامة. ما أنتوا حروا أنا مشان كسو جديو. إدي مدهستي 1 year. وسنة كورنا كورت بيك أفريقيا كورت 2 أكو في الجروب لكن ما أنت أسوت جد. سمد أي لبيهد لكن حرجينا أرسينا كصباح الدون السنة كان marka hore eediyo ku imaatay story yar ka sheekeyna ee ku imaatay inaan waxaan sameeyo maalin kamid ah waxa u baaday cabitaan supermarket ka tagay waxa yeelay wax dibadda laga keenay bacdeen waxa weydiyay wax local lagu sameeyay waxayna ma hayno markaas waxa arkay eediyada inay meesha ka banaan tahay after that eediyadii research ku sameeyay anigoo tijaabinaa waxa soo codsaday application kan oo sanadkii hore aad إيمة سوتون محلي وحجي مسوت السكريسي لكن الحمد لله ما أنت بس نسكت أوكي إذا ما أنت تستطيع كسر سمية وسوقية ميلا قاركود أو يالو دتكي سوار كان سومال فريش جوس وكمبني وين وصوصارة وحياة دالك كبحو سيدا عنبيه بابايجي قريه isbaanayskii saytuunkii marka hore kusoo dhawaada presentationkayga waa company soo saara magaciisa cabitaanka sidoo kale oo ku soo saaro waxyaabaha wadanka ka baxo dhammaan introductionkayga Somali fresh juice wuxuu hordhac u yahay waxa waaye cabitaan caafimaad leh oo heli karo qof walba oo magaciisa wadanka ku sugan sidoo kale magaciisa limit gareenayo dhanka sokorta sidoo kale dhanka oo caafimaadka dhanka dadka waaweyn iyo dadka yar qof walba stable cabi karo sidoo kale problem statement-kayga oo caqabadaha oo wadanka jiro waxa waaye cabitaanaha wadanka dibadda laga keenaa wadankii dadku way caawayaan ma aqaanaan wax laga soo sameeyay sidoo kale wuxuu leeyahay sokor aad u badan sidoo kale dadkii oo magaciisa beeraleydii waxay qudaar beertaan qudaartooda waxay u baahan yihiin in loo abuuro shaqo abuur waxaas la soo process gareeyo after that suuqa soo gala laakiin mar walba waxyaabaha dibadda laga keenay waxa caqabad ay noqon tahay marka caqabadaas ani waxa u arkay inay aan xalin karo okay caqabadaas marka xalinteeda solutionkeeda waxaan isku dayay inaan xaliyo caqabadaas marka waxaan ku xaliyay inaan sameeyo cabitaano natural ah oo lagu darin wax chemical ah oo yaali karo muddo ilaa 3 bilood inkastoo aan ugu talgalay 1 week sababtoo fresh juice marka dhahayo 1 week haday ka badato wixii is fresh ma naqanayo laakiin muddo 3 bilood waa la cabi karaa waana tijaabistaan sidoo kale waxyaabaha aan bixino waxa kamid ah inaan sameeyno fruit mixed ah sidoo kale decoration fruit sidoo kale basket oo gifty oo fruit ah oo loogu talgalay magaciisa hadaa qof xanuunsan u socotid asigoo gifty fruitkii ina u geysay like sana amal ah sidoo kale marka market analysis kan aan sameynay okay waxa targereynayna ko waxa waaye dadka oo magaciisa supermarket wholesaleska sidoo kale magaciisa dadka professionalka like magaciisa dadka u shaqeeya caafimaadka medicineki oo kale sidoo kale magaciisa ardaydii xafiisyadii sidoo kale magaciisa hotelski event organizationki sidoo kale dadka dibadda noogu imaanayo oo doorbidaya inay helaan cabitaano oo wadanka laga soo saaray sidoo kale inaan la tartami karno maadaama hadda aan ku biirno East African Community oo waxyaabaha wadankeena oo soo saaray mar walba aan ku faani karno dhig karno anaga wadankeena waxaan soo saarnaa business model-kayga waa kana waxa ka balance dadka oo beeraleyda oo wadanka sidoo kale wholesaleska packaging dadka oo iibiyo sidoo kale dadka oo iibsado magaciisa tafaariiqda meelaha bararka sidoo kale key activities-kayga waxa waaye gift key full preparation-kayga waxa waaye boqolkiiba horta cabitaankayga waxa waaye natural waaye sidoo kale wax preservative la wax ilaaliyo la kuma jiro
sidoo kale waxaa laga soo dhadhankiisa dhankankii cabitaanada Soomaalida lahayo cambihi markii la shiido sidoo kale babaygii qarihii customer relationship waxay dadka inaan u sameyn karo wax sida iyaga u rabaan customization oo kale sidoo kale markay alaabtiisa customization waxa sameynaa feedback amal alaabtii meedian facday customer segment waxa waaye dad qof walba oo micaysi individual ahaan sidoo kale scholarski hospitality cafe restaurant-ga Allah musta'an kayriskeyga waxa waaye waxa ay local famouska beerleydii dadka sameeyo cabitaanada sidoo kale micaysi dadka qaladaha oo cabitaanada balandarka iyo waxaas iibiyo sidoo kale dadka storage-da kireeyo sababtoo waxa mararka qaarkiis sanad way isbedelaan qudaarta qaarkiis lama helo marka waxa u baahan tahay storage oo curiosity ah qudaartaas ku kaysatay oo wali fertilization xataa sidoo kale channelska wax ku iibsado waxa waa kamid social media sidoo kale inaa order gareeyo platform u sameeyo oo meeshaas aan dhigo dadka inay soo arkaan Allah musta'an sidoo kale wholesale-ka waxa soo hartay revenue waxa waa direct maalin walba retail waxa sameeya dadka oo iibsado individual oo daily life ku isticmaala cabitaano sidoo kale dadka iibsado fruitka sidoo kale maalin walba waa iibsada as healthy ahaan ama as caadi snacks dadka kiyo isticmaalaan cost structure-keega waa kaas raw material-kii waxa u baahanahay sidoo kale revenue oo bishii waxa sameeyaa 7,000 ilaa 600 marka laga jaro lacagta oo wax yar qaldan xisaabtan wax yar way qaldan tahay okay no problem teamkeyga waa intaas ka koobanahay Xafsa Abdicasiis Jaafar Abdicasiis waa family business waaye sidoo kale call to action waxa codsan lahay alaabahan in la soo iibiyo oo xarumo kale oo magaalada in laga sii furo sidoo kale waxa rajeynayaa inaad tababaro badan oo na siisiin oo ku saabsan dhanka iyo micaysi businesska waan ku mahadsantiin dhageysiga adii teamkaaga aku mahadsan tahay presentationkan qurux badan aad noo soo jeedisay waxaan rabaa inaan ogaado businesskaaga ilaa intuu shaqeynaayo hadda suuqa cabitaanada kale la soo gelinayo saa sheegtay kan muxuu uga duwan yahay oo dadka ay ku doorbidi doonaan kan inay qaataan aad u mahadsan qabaa mid waxa waaye haddii aadan preservative isticmaalin oo kaydiye daawo muxaafida aadan isticmaalin sidee ku kaydisaa ma talaagada gelisaa maxaa ku kaydisaa arabka tan labaad khudaarta processing in la diyaariyo la nadiifiyo la jarjaro ma ahane hab kale oo khudaarti u sameeysid ma jiraan wax kale oo diyaarin kale iyo farsamooyin kale ama decoration la geliyay packaging kaas سفيان decoration loo sameeyo si fiican ku fahmay doontaan insha Allah laba su'aalood oo midi suggestion soo jeedintaan weydiin raba su'aasha koowaad waxay tahay cabitaanadan hadda diga soo sameeysan Soomaa ma jiraan hormo kuwa u sameeysan suuq market geliseen ma jiraan suuqa dhiibseen hadii jiraan imisa shaqeynaysaan su'aasha labaad waxay tahay cabitaankani wuxuu baahan yahay processing oo nutrition-ki nafaqada in laga fiiriyo in quality-ga laga fiiriyo in nadaafadiisa laftiisa waxaas dhan oo baahiyaa qof takhasus u leh intaas qaba kara teamkiina ku jira mis صح هذا كان يديك أساسا مثلا سما إمسو جرا عمري سو إمس هذا كان إمسو جرا غورما سميسن غورما سميسن فريش ما أنت سميسن إمسو أولي كرامرك صدق بلد أولي كرا ما حد كوخي ميسن ما حد كوخي قاتين أولي كرا صدق بلد ما حد كوخي قاتين الإيبيدية أستاذ جميلة يو أستاذ كان أستاذ حمدي أوكي ويسمع هين إمسوسنا وجرا هذا البزنس كين
businesskayna wuxuu shaqeynayaa 5 months maya 4 bilood iyo bar waaye miyuu waaday soo istaagay sidoo kale ustaadkana waxay dhahay su'aal kale ay weydiisay sax maxaa ugu duwan tihiin dadka kale waxaa ugu duwannahay kow waxaa waaye Kenya waa wadankii wixii ka soo baxay ambihii wadankaaga ka soo baxay ambihii wadanka ka soo baxay sidoo kale isbaandhayskii saytuunkii ay waxyaabaha wadankeena qaniga ku ahaay waa wixii yaali waay processing la mariyay qashana lagu dilay markeen hore waa isticmaali jirnay chemical laakiin anaga waxaa doorbidnay without chemical inaan sameeyno ilaa kan dibadana ugu imaanay chemical ku jirto marka maxaa ugu duwan okay waxaa ugu soo dalbi kartaa gurigaaga waxay noqon time inaad gelisid laakiin ana way soo bixisa isla markii uu ku soo dhigo soo sajalaysan oo hadaa qabow rabtid hadaa soo qabow ahayn sidaas hadda mararka qaarkiis supermarket markaa tagto soo gadataa ma cabitaano kadib adoo doorbidaya inaad shiidin karo waxa leedahay kan aad diyaarsan dhulkaas qadada ku cabaysa kaas like taas oo kale thank you